wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Cumar Caananuug ayaa iska casilay xilkii uu ka hayay wasaaradda kadib khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay isaga iyo wasiirka wasaaradda Firdawso Cusmaan Cigaal. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku yiri: walaalayaal, damiirkaygu waxa uu siin waayay inaan kasii tirsanaado xafiis lagu dulminayo muwaadiniin Soomaaliyeed laguna foolxumeynaya adeegga iyo kalsoonida ay ummadda Soomaaliyeed ku qabtay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. Dhanka kale, warqad qoraal ah oo uu qoray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayuu ku sheegay in khilaafka u dhaxeeyay isaga iyo wasiirka uu salka ku hayo habka loo bixiyo qandaraasyada garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde. Khilaafka u dhaxeeya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk Soomaaliya Firdawso Cusmaan Cigaal iyo wasiir dowlaha wasaaradda Maxamed Cali Cumar Caananuug ayaa salka ku hayay shirkad shidaal taas oo diyaaradaha siisa shidaalka. 21 bishan, wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda ayaa shaqada ugu joojisay shirkadda shidaalka. Sababta shaqada loogu joojiyay ayay ku sheegtay wasiirka cabasho ka timid shirkadda, balse wareegto ka soo baxday xafiiska wasiir dowlaha wasaaradda 22 Febraayo ee bishan oo ku beegneyd maalinimadii shalay ayaa lagu fasaxay.